Go. odayaal qodobkii ugu horreysay waxaynu kusoo qaadanaynaa dowladda Kenya ku hajabtay inay Soomaaliya weerari doonto sida uu daawacay wargeyska faalooda arrimaha sirdoonka Africa Intelligence haweeneyda wasiirka arrimaha dibadda ka ah dalka Kenya Rachel Omamo waxay uga digtay dhigida Soomaaliya Ahmed Ciise Caawad inay military Kenya ka falcelin doonaan dhacdo kasta weerar dheeraad ah oo ka dhaca xuduudka ay labada dal wadaagaan ay dowladda Kenya ay bishan Oktoobar labadeeda usoo dirtay dowladda federaalka Soomaaliya ayay ku muujisay fariinto degniin iyo hanjabaad fariintan ayaa soo diray kadib markii golaha amniga qaranka Kenya ay shir degdeg ah ka yeesheen isasaasinta ciidanka Soomaaliya kuwa Kenya dabayaaqadii hore bishii September ay isku wadaarsadeen xuduudka degmada Balada Xaawo ee gobolka Gedo askarta Kenya waxay rasaasayeen dibadbaxyaal ka soo horjeeday falay ciidanka Kenya ku dileen dad rayid ah kuwa kalena ay ku qafaasheen xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa xumaa kadib markii ay u soo kala dhaxgalay khilaaf diblomaasiyadeed kaasi oo ku qotobay maro dhanka xuduud badeedka iyo dhanka badda isla markaana ay dowladda federaalka ku eedeysay Kenya inay fargelin ku hayaan arrimaha gudaha ee Soomaaliya bishii hore ay ahayd markii dowladda Soomaaliya ay joojisay qaadkii laga keeni jiray Kenya kaasi oo ay ku tilmaantay in loo joojiyay sababo la xiriira caabuqa COVID-19 kastaba haatee digniinta haatan ka soo baxday dowladda Kenya oo ku aadan in ay weerari doonaan Soomaaliya haddii mar dambe laga soo weeraro dhanka xuduudka ayaa waxay muujinaysaa in khilaafka ka dhexeeya labada dowladood uu aada u sii kacayo iyadoo hore uu ka dhexeeyay khilaaf ama muran soo jireen oo ku aadan asteynta xuduudka badda iyo beriga ay wadaagaan iyadoo ay Kenya sheeganayso qaybo ka mid ah xuduud badeedka Soomaaliya ee badweynta Hindiya daawadayaal xubintan waxaynu ku eegaynaa isbarbardhig guud oo aan ku sameynayno awoodda militari ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya labadaas wadan oo xuduud leh ayaa waxaa tirada guud ee dadkooda marka la eego ay tirada muwaadiniinta Soomaalida ay gaarayaan 15 milyan halka kuwa Kenyatigana ay gaarayaan 51 milyan 390,000 oo qof tirada guud ee ciidanka heeganka labadaas wadan markaynu eegno Soomaaliya waxay leedahay ciidan tiradiisu ay dhantahay 20,000 oo askari halka Kenya ay leeyihiin 24,150 askari labada wadan malaha ciidan keyd u ah aynu qalabka military ee labadaas ciidan ay kala haystaan Soomaaliya waxay leedahay 10 taangi halka Kenya ay ka leedahay 76 Soomaaliya waxay leedahay 100 beebe halka Kenya ay ka leedahay 479 madaafiicda Soomaaliya malaha Kenya waxay leedahay 30 madfac madaafiicda la jeedo Soomaaliya waxay leedahay 30 xabo halka Kenya ay leedahay 25 gaadiidka sawaariikhda ku rikaban ama gantaalada laga tuuro Soomaaliya waxay leedahay 10 Kenya wax gaadiid ay saaran gantaalada sawaariikhda laga gano malaha diyaaradaha dagaalka Soomaaliya malaha Kenya waxay leedahay 150 diyaaradaha dagaalka ciidanka badda markayna eegno labada dal malaha maraakiibta dagaalka kuwa diyaaradaha xambaara kuwa badda quusa balse waxay Soomaaliya leedahay 11 dooniyaha ilaalada xeebaha halka Kenya ay leedahay 7 dooni oo ah kuwa lagu ilaaliyo xeebaha dhinaca kale Soomaaliya waxay leedahay 5 maraakiibta xamuulka balse Kenya waxay leedahay 22 markab kastaba haatee markaynu eegno miisaaniyadda militariga ee labadaas ciidan lagu qarash gareeyo sanadkiiba waxa ay militariga Soomaaliya u qarash gareeyaa 60 milyan iyo 200,000 oo dollar halka Kenya ciidankoodana sanadkiiba lagu qarash gareeyo lacag dhan 121 milyan oo dollar leeyash ayaa rumaysan inaysan haatan wax walaac dagaal ah oo labada ciidan ka dhex jira aysan jirin inkastoo dhanka xuduudka ay caadi ahaan u ka taagayaan muran isla markaana mararka qaarkood ilaalada xuduudaha iyo dadka deegaanka ay isweydaarsadaan rasaas askar Kenyan ayaa ku sugan gudaha Soomaaliya kuwaasi oo dalka Soomaaliya soo galay sanadkii 2011 waxayna ciidankaas qaarkood ka mid yihiin ciidanka howlgalka AMISOM halka kuwa kalena ay yihiin kuwa ka madax banaan kuwaasoo badankooda ka howlgala ama la howlgala dowlad goboleedka Jubbaland
dagaalkii ka holcayay gobolka Nagorno Karabakh oo laga gaaray heshiis xabad joojin aadmanimo 2 isbuuc oo ay militariga dalka Azerbaijan iyo Armenia ku dagaalameen gobolka lagu marsiiyay Nagorno Karabakh ayaa waxay labada dhinac isla gaareen heshiis xabad joojin ah. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Russia Sergey Lavrov ayaa sheegay ogtii waa bari saakito sabtiga in wasiirada arrimaha dibadda ee labada wadan Azerbaijan iyo Armenia ay ku kulmeen magaalada Moscow kuna gaareen heshiis hordhac xabad joojin ah oo dhanka aadmanimada iyo qorshe lagu bilaabayo wadaxaajood lagu dhameynayo colaadda gaamurtay ee gobolka Nagorno Karabakh. arrimaha dibadda Azerbaijan Ceyhun Bayramov iyo dhigiisa dalka Armenia Sohrab Manastkyan ayaa waxay yeesheen kulan socday muddo 10 saacadood ah iyadoo wasiirka arrimaha dibadda Russia Sergey Lavrov uu dhexdhexaadinayay. hadal ka soo baxay Sergey Lavrov ayaa lagu sheegay in hay'adda lanqeyrta cas loo xilsaaray inay ka shaqeyso dhexdhexaadinta howlaha samafalka aadminimada iyo isla markii la gaaro heshiiska xabad joojinta oo la filayo maanta oo sabtiga dhaqan galo. wasiirka arrimaha dibadda ee Russia wax faahfaahin kama bixin heshiiska nuxurkiisa balse wuxuu sheegay in kooxda Minsk Group ee ururka nabadda iskaashiga Yurub ee loo soo gaabay OSCE ay dhexdhexaadin doonaan labadaasi wadan. labada wasiir arrimaha dibadda ee Azerbaijan iyo Armenia lama aysan hadlin suxufiyiinta markii ay saxiixeen heshiiskaasi xabad joojinta ee wasiirka arrimaha dibadda Russia Sergey Lavrov uu ku dhawaaqay in heshiis xabad joojin ay gaareen labada dhinac. heshiiskaasi ayaa wuxuu dhigaya xabad joojin in ciidamada la kala qaado, in maxaabiista la isweydaarsado, meydadka la aaso, kadibna la bilaabo wadaxaajood siyaasadeed oo lagu xalinayo colaadda lagu riiqmay ee gobolka Nagorno Karabakh. ugu yaraan 300 qof ayaa la soo wariyay inay ku geeriyoodeen dagaalkaasi oo qoraxay bishii soo dhaafay September 30keeda wuxuuna dagaalkaasi kii wuxuu ka dhacay gobolka Nagorno Karabakh tan iyo dagaalkii dhacay sanadkii 2016 oo ay 10 qof ku geeriyootay. gobolka lagu hardamay Nagorno Karabakh markii la eego sharciga caalamiga waxaa loo aqoonsan yahay inuu ka tirsan yahay dalka Azerbaijan balse waxaa ku nool dad badan asalkooda Armenia kuwaasi oo ku gacansiiyay inay gobolka la hoosgeeyo maamulka dowladda Azerbaijan. tani burburkii dalweynihii midowga Soviet ee USSR sanadihii 1990kii dagaalo ayaa ku soo laabtay gobolka Nagorno Karabakh iyadoo ugu yaraan 300,000 oo qof lagu dilay halka 100,000 oo kalena loo qasbin guryahooda ka cararaan kahor intaan heshiis caalami ah xabad joojin ah lagu heshiiyay sanadkii 1994. Kenya oo laga codsaday xalinta muranka Masar iyo Itoobiya ee biyo-xireenka weyn ee Geet kadib kulankii madaxweynayaasha Masar iyo Kenya ee ay isbuuc hore ku yeesheen magaalada Qaahire ayaa waxaa ka soo baxay warar sheegaya inuu madaxweyne Uhuru Kenyatta diyaar u yahay inuu taageero ka geysto sidii loo xalin lahaa khilaafka ama muranka Masar iyo Itoobiya ka dhashay saameyn qaybsiga biyaha ee biyo-xireenka dib u curashada Itoobiya Geet. hadal ka soo baxay aqalka dowladda Kenya ayaa waxa ay hore ugu sheegeen inay labada madaxweyne ka wada xaajoodeen xiriirka labada dal, ganacsiga, ammaanka gobolka iyo ka hortagga qaaradda Afrika COVID-19. balse saraakiisha Masar ayaa waxay sheegeen inay labada madaxweyne isku raaceen inay si dhow isagala shaqeeyaan arrinta ku aadan muranka biyo-xireenka weyn ee Itoobiya ee haatan laga dhisayo gobolka Benishangul Gumuz ee u dhow xuduudka Itoobiya la wadaagto Suudaan. afhayeenka madaxweynaha dalka Masar Abdulfatah al-Sisi ayaa sheegay in kulanka lamada madaxweyne isla eegeen horumaradii u dambeeyay ee danaha wadajirka ay wadaagaan labada dal gaar ahaan qodobka quseeya saami qaybsiga biyaha webiga Niil iyo biyo-xireenka Itoobiya. afhayeenka wuxuu intaas ku daray inay labada madaxweyne ku wada heshiiyeen in la xoojiyo xiriirka u dhexeeya labada dal ee xilliyada soo socda. afhayeenka madaxweynaha Masar waxa kale oo tilmaamay inay doonayaan in heshiis laga gaaro biyaha Niil oo xusay inuu yahay qodob laba taabtaan oo quseeya ammaanka qaranka Masar. madaxweyne al-Sisi wuxuu diiradda saaray in qodobka biyaha Niil muhiim u yahay dadka Masaarida isla markaana doonayaan in heshiis sharci ah loo maro xuquuqda biyaha webiga Niil ayuu yiri afhayeenka madaxtooyada Masar. waxay intaas ku daray in loo baahan yahay in loo maro heshiis sharci ah oo lagu cadeynayo sharciyada howlgalka biyo-xireenka Itoobiya iyadoo la dhowrayo danaha guud ee dhinacyada uu quseeyo webiga Niil ama biyo-xireenkaasi
dhinaca kale tallaabada uu madaxweyne Uhuru Kenyatta ku doonayay inuu u kala dabqaado madaxda Itoobiya iyo Masar ayaa waxay kusoo beegantay iyadoo hore loogu hungoobay dadaalo caalami ah lagu xalin lahaa muranka ka dhashay saami qaybsiga biyaha webiga Niil ee Itoobiya ka dhashanayso biyo xireenka. dowladda Itoobiya waxay mashruucaasi ku qarash garaynaysaa lacag dhan 4.8 bilyan oo dollar oo ay sheegtay in laga soo ururiyay dadka reer Itoobiya oo kaliya. xeeldheerayaasha ayaa rumaysan inaan xal fudud laga gaari doonin mustaqbalka muranka dowladaha Masar, Suudaan, Itoobiya ku aadan biyo xireenka weynka ee Itoobiya, iyadoo dowladda Masar u aragto in dhismaha biyo xireenka weyn ee geed ee webiga Niilka buluga uu 85% ka kooban yahay biyaha webiga Niil, kaasi oo khatar gelin kara isha mustaqbalka ee biyaha waraabinta, koronto dhalinta iyo isticmaalka gudaha ee dadka reer Masar. talaadii lasoo dhaafay ay ahayd dowladda Itoobiya xilligii ay ku dhawaaqday in ay xireen hawada sare ee gobolka Bishangul Gumuz oo ah deegaanka uu ku yaalo biyo xireenka weyn ee geed ee halkaa ka dhisayso. saraakiisha ammaanka Itoobiya waxay sheegeen in sababo dhanka ammaanka ay ka dambeyso xiritaanka hawada gobolkaasi, iyadoo aan weli la xalin khilaafka u dhexeeyay Itoobiya, Suudaan iyo Masar ee isticmaalka webiga Niil. Itoobiya waxay walaac xoog ka qabtaa in ciidanka Masar ay duqeyn cirka ay soo qaadaan oo ay ku burburiyaan webigaasi ama biyo xireenkaasi, taasi oo dhabarjab weyn ku noqon karta Itoobiya haddii weerarkaasi uu dhaco. daawade haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro kambalelkana furo si aad u hesho muuqaalo ku xiisa geliya. mahadsanid. fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro kambalelkana furo si aad u hesho muuqaalo